munaasabad ballaaran oo si heersare loo soo agaasimay laguna soo bandhigay buug ay qortay qoraa Xamdi Mahdi Faarax kaasoo lagu magacaabo Ubad Yaar Xalaawe ayaa caawa ka qabsoomay Hotel Rais ee magaalada Tambuuhoodle. Xafladda lagu soo bandhigay buugga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, culimo, dhalinyaro, ururo, naadiga akhriska iyo qoraalka Jaamac Umar Ciise iyo xubno kale oo inta badan ka shaqeeya horumarinta bulshada. Ugu horeyn waxaa halkaasi hadal kooban oo u badan mahadnaq ka soo jeedisay qoraaga buugga Xamdi Mahdi Faarax. waxay garowe la sacaano iyo caawa ku sugan yahay Buuhoodle farxad weyn bay tahay xaqiiqda inaan mar labaad ku suganahay dhulka daraawiishta iyo Buuhoodle aan ku noqonayo safar dheer oo saacado badan qaatay kadib waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta Buuhoodle joogo la kulmo dhalinyartan iyo mas'uuliyiinta Buuhoodle. intaa kadib buuggan wuxuu ka kooban yahay laba magac oo saaran Ubad Yaar Xalaawe ubad oo nin Soomaaliyeed ah Yaar Xalaawe oo ah qof kasta oo Soomaaliyeed dhibaateeya sababtoo ah waxa soo wareey maya oo afka la haayo ma aha ilmaha kale la afturtay ee waxa weeye inuu sanadiisa sheegan karin. buuggan sababaha uu qoro waxay ahayd dhibaatada haysata ilmaha Soomaaliyeed isla markaasna iyaga aysan ka hadli karin dhibaatada ay leedahay. marka walaalayaal waxaan iga codsanayaa inaan fariintan qaadno guri kasta ku celino buugana maanta Buuhoodle marti u yahay farxad weyn bay tahay mar labaad dhulka daraawiishta joogo fariinta tan qof kasta ee mas'uuliyad ka saaran tahay inuu qaado buuggan akhriyo macallimiinta dadka kale oo macallimiinta la helkay inay macallimiinta u geeyo. intaasi kadib waxaa hadalka iskaga kala dambeeyay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi. هذه يلا مرة يا أخس يقرأ إن شاء الله هذا ما سنته مرة ما دي مصلح هذا رسول وين يا ولا شيء حمدي سولو ولا كعب مفرد إن شاء الله هلا لو البوك ترى هلا يشوف هذه لها إن شاء الله. أنت كبعضي وعفلا يا موضوع عشر كنا بكسب سيهاي اللي سولو ولا غايها بدل قراءة ورده يبدأ إذا نرجعنا صوتي على سيدوكا وروحنا بدل يقيمها بدل مفردية الوصول إليك سلوك البرنامج أوروبا وجامعة عمر عيسى ورنتنا أكثر دقيقة يمكن بس بالبوشرة وحفظنا وقيم بدلنا وحي. عندما تقول حتى إنه نقدر كعين واحد من البشرة قوية ذاك الدول على تلك الجوال الذين يقولون الصوماليين إلى نكهرني waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Cayn weli deegaanka la doortay iyo maamulkii gobolka la doortay iyadoo aad iyo aad u qiimo badan bay soo socdaan. waxaan idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan maamulka degmada iyo maamulka gobolka oo labadaba doorasho fiican ku soo baxay dhalinyaro aqoonyahanna loo doortay aan wanaagga gacmaha isu qabsano nabadgelyada aan horeysiino horumarkana aan ku xojino tacliintana aan iyadana magaalada Buuhoodle hoyga daraawiishta gobonimada iyo maqsadka intaba waxaan rajeynayaa inaadan ku cildoon doonin Buuhoodle shakhsiyan anigu waxaynu u mahad celinaynaa gabadha qoraaga ahna samafalaha qofku marka koobaad marka uu isku dayo inuu wax qoro wuxuu la kulmayaa caqabado fara badan. runtii xafladan wax ka aad qiimo leh xafladii maadaama soo qalbana xaflad ugu muhiimsan weeye sideedaba bulshadu waxay ka hormartaa horumar ku gaadhaa waa akhriska iyo qoraalka inta badan bulshada reebahooda waxaa lagu tilmaamaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba bulsho oral society ama bulsho afka ka hadasha oo waxa weeye inta badan aan waxba aan qorin bulshada in laga wacyigeliyo oo loo sheego sidii wax u qorayeen. Ali Maxamed Xasan warbaahinta Kalsan Buuhoodle.